agaasimihii guud ee la dagaalanka argagixisada dowladda dalka Mareykanka ayaa iscasilay isla mar ahaantaasna sheegay in ay dowladda dalka Iiraan aysan haba yaraatee halis aysan ku ahayn dowladda dalka Mareykanka ammaankeeda. Arrintan ayaa waxaa la sheegay inay tahay dhabar jab weyn iyo weliba dhaawac siyaasadeed oo Donald Trump soo gaaray xilli isaga iyo golihiisa wasiiradu ay iibinayeen Iiraan inay halis ku tahay oo ay weerar ku soo qaadayso. haddaba waxaynu eegaynaa hadalka iscasilaada Joe Kent oo iscasilay iyo waxa ay saameyn yeelatay dhinaca kalena dilkii Cali Larijani waxa uu sababay Iiraan caawa ayila iyo saqdi dhexe in ay weeraro lixaad leh ay ku qaaday Israa'iil waxaana lagu soo warramayaa train station in dhaawac iyo burbur badan uu soo gaaray laba qofna markaas halkaas ay ku naf waayeen. xaaladda ayaa cirka isku sii shareertay dhinaca kale marka la eego wadamada golofka waxaana lagu soo warramayaa duqayn lixaad leh inay ka socoto markaas wadamada Bahrain, Imaaraadka, Kuwait iyo weliba dalka Ciraaq oo milishooyin markaas dhanka dowladda dalka Iiraan u janjeera oo hore oga gadooday dilkii Ayatollah Ali Khamenei haatan ku-xigeenkiisii la dilay Cali Larijani aad iyo aad uga carooday. haddaba barnaamijkan waxaan kusoo marti qaaday rugcadaaga weyn ee falanqeeya siyaasadda caalamka isla mar ahaantaasna muddo dheer dalka Mareykanka ku noolaa kana mid ah dadka farakutiriska hadduusan kaalinta koowaad kaga jirin ee xog ogaalka u ah siyaasadda Mareykanka iyo maanta xaaladdu ay meesha ay marayso. waxaa laga yaabaa inay isweydiinaysaan waa kuma waa Maxamuud Nuur Wardheere oo in badan halkan aynu ka waraysanay horeyna aqalka sanadka Mareykanka uga soo shaqeeyey. Maxamuud soo dhawow. wadhowahay waan salaamayaa bahda Brit Somal TV iyo daawadayaashaada kala jooga dunida dacaladeeda. Joe Kent oo horey u ahaa agaasimihii guud ee hay-adda la dagaalanka argagixisada Mareykanka jaga aad iyo aad u weyn hayay 11 dagaal horey uga soo qayb qaatay in uu maanta sidaas u hadlo maxay hadalkaas hadalhaynta dhaliyay maxaad nooga sheegi kartaa saameynta gudaha siyaasadda Mareykanka warkiisa uu ku leeyahay. xaafida horta maanta waa warka ugu weyn oo Mareykanka laga wada hadlayo oo dadka siyaasadda u dhultaloolayo cabsida dagaalka Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil ka socdaa weliba dadka daneeya hawsi daraadaane waxa waaye iscasilaada ninkii dhannaa ee u qaabilsanaa la dagaalanka argagixisada iyo ammaanka dalka agaasimihii guud oo la yiraahdo Joe Kent baa iscasilay. marka waxaan xiisaha ka dhigay waxa waaye waqtiga uu ku soo aadiyay markii ugu darneyd oo foolxumadii dagaalkii guuldaradii guushii laga gaari waayay dagaalkii guushii dadka loo ballan qaado degdega ahaa iyo markii maaragtaa iyo hadallada uu qoray warqad uu qoray oo uu dadka kula hadlayo oo uu leeyahay sababtan isu casilay waa saas. qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye wuxuu yidhi maadaama aan aniga ahay dadkii ninkii Mareykanka uu agaasimihii guud ee ammaanka shaqadan ma sii hayn karo sababtoo ah dagaalkan aan la galnay Iiraan oo ay dadka Mareykanka siyaasiyiinta u bixiyeen war of choice macnaha dagaal ikhtiyaar loo galay oon lagu khasbanayn baa wuxuu yidhi dagaalkan waa khalad waxa inaan galno ma ahayn waxaa nagu kalifay Israa'iil iyo dadka u ololeeya oo Mareykanka degan baan geliyay dagaal aan shaqo ku leenahay male waxaanan maadaama aan sirta dhan ogahay yiri wax khatar ah oo nagu soo aadan haba yaraatee waxa dhaan imminent threat ma jirto yiri. marka muhiimadda dadka Mareykanka waxay u danaynayaan ninkan warkiisa waxa waaye wuxuu ogaal waa ninkii dhanaa sirta hayay waa ninkii dhanaa dagaalkana waa iska cadeed awalba dadka waatu oo qaar koox yar baa la khaldi karaa dadka badana way arkaan. marka hore waxaa loo bixiyay war of choice dagaalkii ikhtiyaarka loo galay ma ogtahay iyo dagaalkii Trump uusan cidna la tashan xataa la leeyahay generaaladii iyo maarta dadkiisii aad u dhowaa muusan dhageysanin. waxyaabaha lagu warsan yahay waxaa ka mid ah hadda inuu leeyahay waxaan la yaabanahay in dalalka Iiraan inay weerar dalalka khaliijka waxaan la yaabanahay in isdhiib la'dahay Iiraan odaga weyn oo Trump ma ogtahay waa nin hadalka mararka qaar soo rabo hadal siyaasi ahay wuxuu leeyahay maxay inay isdhiibaanay ahayd waa garan la waxay isu dhiibi laayihiin. waxaa kaloo leeyahay dalalkan khaliijka in la weeraro ma filanay waxaa kaloo leeyahay Hormuz in la xiraayo u malaynayninba. marka
warqadan iyo waqtiga kusoo aaday waa muhiim wax weyn way dad badan ay wax u iftiiminaysaa ninkan waxaan filayaa inuu xataa kusoo caan bixi doono dhici karto inuu madaxweyne u ordo mustaqbalka dalka Mareykanka waayahay maxamuud waxaa rabaa waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan warqadan arkinin paragraafka labaad haddii aynu akhrino ee sababay markaas in kooxaha Israa'iil u ololeeya ama taageera ama kasoo horjeeda qaar ka mid ah ay si xad dhaaf u weeraraan waxa uu yiri I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran poses no imminent threat to our nation. wayna ii caddaatay ayuu yiri in markaas dagaalkan aan u galnay due to a pressure from Israel and it is powerful American lobby. Arrintaas hadal hayn weyn bay dhalisay. Maxay daaranta? arrintaas hadda waa warka waataan hadda sheegay waan ku celiyay dagaalkan in aan danta Mareykanka ku jirin Mareykanna aanay khatar ku soo soconin buu sheegay ee la geliyay waana tan keentay maantaba in maaragtaa aad loo hadalhayo kaaga daran intaas colaad badan ku kasbado maanta saaxiibana uu kasbanaya cusub col badan uu kasbanaya hadalkan meel fog buu gaaraya hadalka ninkan uu yiri paragraafka u dambeeya kan ku xiga haddaan eegno oo lixaad waxa uu sheegay inuu markaas yahay veteran in hore dagaallo fara badan uga soo qayb qaatay 11 dagaalna Mareykanka u soo galay isla mar ahaantaasna gold star husband uu yahay oo xaaskiisii laftigeeda lagu dilay dagaaladaas xaaskiisa oo Sharon la oran jiray isla mar ahaantaasna dagaalkii xaaskiisa lagu dilay uu ahaa mid manufactured by Israel hadalkaas hadal weyn waaye dagaal Israel ay abuurtay soo asagoo hadalka u dhigay oo ay ka soo shaqeysay ayaa lagu dilay ayuu yiri waxa uu sheegayaa markaas inuusan taageeraynin generationka cusub ee Mareykanka ciidamadooda ah in markaa dabka lagu guro oo loo laayo markaas dhiigooda loo daadiyo Israel dhaqaalana lagu bixiyo fara badan ayuu ka soo horjeedaa arrintaas laftigeedu saameynta ay leedahay maxaad uga sheegi kartaa arrintaas waxa ugu muhiimsan waxa waa shahaadooyinkiisa uu soo bandhigayo way macnaha credential waxa loo ninka qofka marka uu wax sheeg rabo inuu hadlo dadku waxa isweydiiyaan for example hadduu rabo qof inuu daawo cudurro ka hadlo shahaado dhakhtarnimo ma haysa dadku way jecel inay ogaadaan marka waxa uu sheegayo waxa uu u soo dariishanayo waxaan oo dhan waxa waaye aniga anaa dalka u soo dagaalamay 11 dagaal aniga ayaa xogtiisa u ogaa agaasimihii dhanaa ee sirta ah waan ogahay dagaalkan dagaal Mareykan dan ugu jirto maahan waana la khasbay waa la gelinayaa laakiin waa wax ku cusub way dadka Mareykanka weligood iyo allahood saa umana halli jirin waa waxyaabaha cusub isbedelay ka mid tahay adduunka inta la joogo waayahay ninkan Joe Kent waxaynu ognahay inuu midigta fog u janjeero controversialna uu yahay aad iyo aad u fog yahay laakiin hadalkiisaan waxa muuqata hadal siyaasadaysan miisaaman uu markaas ila hadda hadalkaaga adii laftiga laga dareemayo uu doonayo inuu asaga laftigiisu isku soo bandhigo laakiin isbandhigidaas Trump ayuu ku tuntay Trump waxa uu cadeeyay door cadba iscaasilaada iyo warqadda waxay isla socdaan wuxuu rabaa Trump inuu iska fogeeyo wada cad duhur cad lagu kala baxo buu rabaa dagaalkana waa aragtay waqti dadkii Mareykanka dadweynaha xataa way ogaadeen dadka xataa leemanka ah oo la socon siyaasadda dagaalkan in ay adag tahay sida guul looga gaaro waqti dhow way adag tahay wuxuuna marayaa sidaan usbuuc hore sheegnay dhimbil xolay noqotay Iran waxa intaas si dheer waxaan ku darayaa caaw dhulwaaga dhagihiisa iga qabo wuxuu raadinayaa Yurub uu qayliyay waxay maraysaa dhulwaaga dhagihiisa yaa iga qabta marka Cabdilxaafid oo adiga ku haboon oo in dhulwaaga dhagihiisa lagu dhiibo Trump waa hayn la yahay waayahay waa gartay waxaan rabay oo kale inaan ku weydiiyo laga yaabaa mega inta ku hadhay Donald Trump inuu ninkan ka didsado ee midigta fog jirtay aaminsan America first horta waa iska caddahay in ninkan mega uu ka tirsanaa dadka aad u taageero ahaa Trump dadka wuxuu ahaa aad iyo aad u ololeeyay
ودadku aaminay oo la tashaday oo u dhibtay ammaanka dhan buu ahaa laakiin dad mega way kala qaybsan tahay marka kuwa waxyaabo u horeeyay Trump ballan qaaday waxa kamid ahaa inuusan dalka Mareykanka gelin doonin dagaal dambe gaar ahaan Middle East dagaalada aan dhamaanayn oo endless wars ah dagaalada aan dhamaanayn oo bariga dhexe in uu ka saari doono inuu yahay kuwii hore inay madaxweynaha doqomo ahaayeen asagoo aqli badan yahay waxyaabihii uu sheegay bay mega kamid ahayd nasiib darro dagaalkan oo aan la yaabin sidoo ku galay ninkii dhexda u fadhiya aniga kula hadda waraaba dhigtiyayga qabtaa buu Yurub iyo dadka u yeeranay marka Joe inuu maanta barnaamijkaas ka maro oo uu dadkii mega soo xusuusiyo ninka wuxuu ballan qaaday iyo sidoo hadda u dhaqmay iyo inuu ka haro oo tilmaamo caruurteena dagaal loo sii wada waxay u badan tahay lacagta ka daran sidaalka ka daran noloshii oo dhan diyaaradihii baa raaci la yahay oo qaali noqdeen cuntadii beerihii wixii lagu bacrimin lahaa wax walba marka inuu tusiyo maaga uu soo jiito oo bees halka ka helo waa dhici kartaa marka anaga hadda ma dhahayno ninkan waa siyaasi oo kursi uu ku ordaay laakiin waa qiyaasteena macnaha waqti uu ku aadiyay iyo sidoo hadallada ula soo aaday baa shaki badan ku gelinaa inuu ninkan hami dheer leeyahay waayahay waxaad tiri oo soo noqon doona Trump mar qoray haddii la yiraahdo waxaad sheegtay NATO inay diiday inay ka qayb qaadato waa kan hadda secretary-geedii hadlayay sida noo muuqata NATO dhinacaad ka eegtidba waxaa muuqata inaysan doonayn dagaalkan inay ka qayb qaataan waxay leeyihiin dagaalkanu ma ahan dagaal Yurub u yaala ma la oran karaa maadaama Ukraine dagaalkeedii uga baxay uu yiri hub gata maadaama uu yiri waxaan ku duulayaa Greenland baan qabsanayaa Yurub inay aad iyo aad u caraysan tahay marka loo eego Joe Biden markuu madaxweynaha ahaa say NATO iyo Mareykanka isku hayeen sidaas awgeedna loogaga baxay dagaalka iyo waliba asaga oo ogolaaday shidaalkii dawladda dalka Ruushka in la beec geeyo oo ay NATO u aragto xiriir iska taabasho inta aad sheegtayba waa sax Yurub laakiin waxa ka sii daray Cabdixaafid inta u dheer aflagaado ma maqli jirtay waxna kuma tarto dadkana hadda kugu dirtaa ninkan noqon inuu Yurub u diiday ma artaa Ukraine iyo inuu diido oo inuu Russia saaxiib leeyahay iyo inuu Yurub yaso iyo inuu jasiiradii maxay Greenland iyo rabaa dhahay ma aha kaliya ninkan Yurub waa bahdilay waa aflagaadey ayagoo rabo inay la shaqeeyaan oo u aaminsan inuu yahay ugaaskii reer galbeedka oo rabaan inay xataa dagaalkan kala muutashan waxay rabi lahayn xataa at least haduu la tashan lahaa qaar baa soo raacina hadda wuxuu leeyahay kuwa ay soo raacay raba oo waan sheegi doonaa laakiin marka aniga waxaan u maleynayaa aflagaadadii baa ku soo noqotay Yurub aad iyo aad buu waxay noqdeen dagaalkii idinma baahnin laakiin hadallada waxaa ka mid ah Hormuz kaalaya maraakiibta socodsiiya dantiina ka shaqeynaya dantiina u soo gala dagaalka Yurub ma danteeda loo sheegaa ma dantooda way yaqaanaan ma ogtahay bal qof ku dhahay dantaada u gal dagaal adeer danteeda aniga aqaanaa ma ogtahay marka wasiirka arrimaha dibadda ee Germany si toos u shiray dagaalkeena maahan wasiirka Ingiriiska Prime Ministerkooda wuxuu yiri ma gelino dagaalkan Yurubta kalena aamuskay ku dadaaleen China iyo South Koreana wuxuu u ka codsaday inay Japan ayagana aamuskay ku dadaaleen marka odaga waxa waaye dhurwaaga dagiisa iga qabo ilaa iyo hadda ma helin wuxuu leeyahay dad baa soo bixi doona dawladda weyn Mareykanka ahay influence dhaqaalan leeyahay list baa hoos igala hadlay waxa kale uu yiri oo ayadana maanta yaab inaan maqashay ma aqaan madaxweynayaasha nool ee Mareykanka mid ka mid ah baa yiri wax fiican aad sameynaysaa good job aniga waan ka shalaysanahay waxa aad sameeyay inaan qabtaan rabi lahaa maanta waxa aad sameynayso adaa iga fiican markii la weydiiyay madaxweynaha waa kumana waa uu diiday inuu sheego ma laga yaabaa maadaama Trump aad u caan u yahay inuu been abuurto oo been sheego inuu iska aliftay waxa taasay u badan tahay 99% laakiin hal waa dhici kartaa ninka la yiraahdaa jira oo aamus badan oo imtixaan laga yaabo in oo hoosta maarta dad kala jira marka waa aniga waad kan waa maxamuud ahaan tuhunkay
hadduu jiro horta beenay u badan tahay boqolka sagaal nin madaxweyne maraykan oo dhahay adaa iga fiicana shaqada aad qaban eeraan waa hore ahayd inaan afartan in la sugo ma ahayn inaan shaqada qabtay ahayd anaa qaban waayey ee waad mahadsan tahay Trump horta sheeko macaan uu samaystay u eg tahay laakiin hadday dhici lahaydna waxaan u maleynayaa only qof oo hadda nool oo arrintaas aniga Clinton aan ku tumi lahaa dadka qaar Bush bay weydiiyeen laakiin Bush ma u maleynayo reer Bush inta waa kala dhintay waya daawada dagaalka iyo waxa noo soo socda meesha xaaladdu ay maraysay dilka cali laarjani shiinuhu waa ka aamusay in uu ogaga jawaabo codsigii maraykanka uga yimid muxuu shiinuhu la aaminsan yahay shiinaha arrintan dagaaladan ku socdo dhanba waaba ninka dhinacna dhaawac bay uga tahay dhinacna faa'iiday uga tahay arrintan horta waa mar oo dagaalka maraykan bogdown wuxuu inuu ku habsaamo oo ku mashquulo ugu rabaa shiinaha tan labaadna in asaga saameyn lagu leeyahay ogyahay because Venezuela laga soo xiray oilkii Venezuela Trump baa aniga gado hadda kan Iran waa laga xiray rabaa marka ninkaas wax badan loolama harin laakiin waa dawlad weyn oo qoto dheer oo degan oo meel fog wax ka fiirso Chinese-ka marka aamuskay ugu dadaaleen mar sababtoo ah hadda ma rabaan dagaalkoodii ma actually si waxa la leeyahay si qarsoodi ah bay waxay sari karaan dhinaca dhaqaalaha iyo Iran ka Trump waxa ugu muhiimsan waxa waaye satellite-kooda oo ay China kala shaqeynayaan Iran satellite waxay qabaan Beidol oo kaba si casrisan GPS-ka Maraykanka oo Maraykanka wuxuu leeyahay 31 satellite kaliya ayaga waxay leeyihiin China 45 satellite waxaan waaye meesha 5 santalaabo baa laga yaabaa inuu kan GPS-ka Maraykanka meeshii bartilmaameedka ahayd u dhawaado laakiin Chinese waxa lagu leeyahay cents wax yar hal talaabo ka yar hal talaabo marka loo qaybiyo 5 meelood meel ka mid ah intaas uu dhow yahay targetkii waxa uu marka waxyaabaha daroonkooda Iran wax looga qaban lahayd waxba ka mid ah baan u maleynayaa horta GPS-ka inay ka baxeen waa hor niman Iraniintii waa niman aqal badan waa hore diyaar garoobeen GPS-ka Maraykanka markay ka baxeen oo ay sameysteen drones aan raadarka qabanaynin maalintaas ay go'aan gaareen ciidamadoodana kala qaybiyeen marka China uma soo waa dalka ugu dambeeyo oo u sacbinayo oo inuu u sacbiyo ama taageero waa habeenkii xalay aan tagay China inuu dagaal ku taageero maarta halka loo imaanay mid kale la soco Cabdixaafid China waa dalka ugu badan oo inkastoo dal weyn oo soo korayay oo oil badan u baahan energy haddana dhinac kale ka tashadeen adduunka badanaa anagoo Soomaaliya dalkeena kala iska dayacan maahan dadka sidaal badan oo bilahay oo preserve haystaan inta waxa dheer baabuurta ugu badan oo bateriga ku socda iyo korontada China iska la adduunka waxa soo dhan waxay ka mid tahay waa hore laga tashaday nuclear waa sida Faransa oo kale nuclear bay sameysteen waxaan xusuustaa waagii ay Carabta inta midoobeen shidaalka adduunka gooyeen 1974 waxyaabaha yaabka isbedel waxa ka mid ahaa horta waxa laga shaqeynay Carab waa dambe midoobeen tan labaad shidaalkooda in laga tashado marka Faransa oo kale nuclear bay sameystay dalal badan nuclear iyo sameeyay waxa la raadiyay energy-ga hawada iyo aad iyo biyaha iyo laga dhalto maraha la raadiyay tan ugu dan waxay baabuurta iyo in shidaal badan kayd badan la dhigto marka China waxay haystaa kayd badan dalalka waxay ka mid tahay ugu kayd ka badan adduunka shidaalka marka bilahan xataa ma saameynayso laakiin Trump iyo ayada inay la shaqeyso waa habeenka xalay aan tagay waayahay haddii aynu dhinaca Iran aadno waxaynu arkaynaa Iran in cali laarjani laga dilay odayga ku-xigeenkiisii ayuu ahaa nin aad iyo aad culus weeye dad fara badan waxay leeyihiin marka la eego taariikhda Israa'iil bartilmaameedkeeda madaxda dadka ay ishayaan tusaale ahaan waxay dishay Yahya Sinwar waxay dishay ninka la oran jiray Ismaaciil Haniyo Tahran ay ku dishay laftigeeda Juulaydii sanadkii 2014 dan xusuusteedu khaldanayn Xasan Nasrullah ayay dishay kooxahaas weli waa nool yihiin waa dagaalamayaan Iran intaasba waana ka xoog badan tahay waana ka dhaqaale badan tahay waana ka facaweyn tahay
cali laarajani uma dhuftinayaan oo hawshooda waa sii wataan haddadan caawa weerarkii ugu cuslaabay israa'iil ku qaadeen train station bay burburiyeen 2 qof baa la dilay dhaawac ayaa jira gantaaladooda weli saameyn inay leeyihiin ayaa muuqata iiraan arrintaanuba waxay u tahay dhabarjabkii ugu weynaa iyo gabaabsigeeda mise faanoo la furo kama qodno waa maxay aragtidaada cabdixafid horta ramadaan baa lagu jiraa anaga dad muslimiina mustaqbalka waxa dhici doona ilaaha og annaga ma garanayno mustaqbalka ilaah baa adduunka koonka maamula waxa ku dambeyn doona ma garan karno dagaaladaana say ku dambeyn doonaan ma garan karno laakiin sida hadda muuqato baan ka hadlaynaa waxa hadda muuqda waxa waaye meeshan waxaa ka socdaa Iran halne waa hanqaraarac luguma dhutay bay dhihi jireen dadka Soomaalida Iran inay ka Iran soo saartay mahmaada hanqaraarac dadka maarta Iran waa horaad moodaa sida hadda u sheegay sida uga tashadeen GPS-ka Mareykanka ciidamadooda independently isu kala qaybsan yihiin oo ay dagaalami karaan madaxdooda inay tahay maaragta liist dhan oo dheer oo marka la dilo ay 10 kala saf ugu jiraan hab cajiib inay u dardaarmeen waa muuqataa dagaalkana Israa'iil iyo Mareykanka yes cirku way ku sarreeyaan iyagana waxaa looga sarreeyaa waxa dhinacyo kale oo aan filanayna looga soo baxay dalalkii khaliifka isla haayeen ma la taabanayo ama idinkii soo raacayaan ayagana dagaalkii ma gelin waa dadaaleen nimankaas damage waa la gaaray danaha Mareykanka ee meesha hormuud waa la xiray marka dagaalka way wadi karaan Iran waa u habaysan yihiin laakiin Cabdixafid waxa rabaa ku daro kelmadda ugu miisano caawa aan rabno dadka inay ogaadaan dagaalkan Mareykan wuxuu u qaaday waxa loo ujeedada number 1 waxa ay regime change ah marka waa fashion laakiin Iran baa laga yaabaa regime change inay Mareykan ku samayso si u sameynaysa aan labadooda waxa goodaa hadda ilaah baa garanto ka regime change Mareykan United States regime change inuu ka dhaco iyo Iran inuu regime change ka dhaco ilaah baa garankiisa hormar kara inay kan dhicido sababtoo ah labadaba waxay leeyihiin dadweynaha regime change ayaga ma keenaya kuwan Mareykan waxay leeyihiin Israa'iil markaan bambeeno garaacno hawada ka garaac dadka ka caayo oo regime change sameynaya Mareykanna waxaa ka cad November doorasho soo socota Trump hadduu 2 shay sameyn kari waayo regime change hadduu halka ka sameyn waayo hormuudna uu furi waayo isagana regime change waa diyaar halka Washington DC la Congress labada aqal dimuqraad hadii la wareegaan regime change official ku dhacaya Trump ma garta waa labada marka ay tigay regime change kala soo dhaway su'aasha wala isweydiinayo waxa waaye labadaba horta dhib bay ku jiraan hadda Iran dhib bay ku jiraan hadda dalkoodii baa la garaacay kii adkaysi badan baa dambeynay guuleysanayaan Iran marka hadda kama jawaabi karo sababtoo ah mustaqbalka waxaad tegaysaa laakiin hadda Iran waxaa ku socda madaafiic magaalooyinkeedii dadkeedii la qaxinayo bambooyina ku socda Trumpna habeenkii 4 qodob la seexan laayay oo la soo kaca 5 qodob waa marka koowaad waxa waaye regime change waa shaqeyn laayay labaad hormuudkii waa maarta la xirir waa la furi laayay saddexaad subaxii markuu soo fiiriyo stock marketka iyo buu fiiriyaa iyo maciishadii ayadana cirkay ku jirta wadna kurkurka uu ka seexan laayay kamid tan ugu dambaysa gaaskii baa cirka aaday ayadana waa wadna kurkur kale marka dadweynihii ku kici doonaan oo maarta khasama inay qori qaataan dadweynaha Mareykanka regime change kuma imaado kaliya in military wuxuu ku imaan karaa hab kale marka ayaga waxa shacbiga Iran waa adag tahay hadda inay maaragta amri ilaahay wax wal waa inay shacbiga Iran inay tacaano regime change sameeyaan way adag tahay hadda kuwa Mareykanka ka sahlan sababtoo hadduu shaqeyn waayo labada gool uu gaari waayo ilaa September waxa waaye waana adag tahay hormuud furitaankeeda Iran cid ka celin kartaa male fiiri uma baahna inay dagaalamaan geesaha u istaagayaan qoriyal ama doonyar waxay ku soo tuurayaan maraakiibtan waaweyn waa dayacan marka halkaas ku joojinaya waad garatay labada regime change
kasoo hormaraya ilaahda waa gartay haddii aynu eegno waxaa noola soconaa cali khameyni intaan la dilin ka hor waxyaalihii uu hor istaago fadwada kasoo saaray waxaa kamid ahayd inaysan nuclear samaysan mashtaba cali khameyni waxaa la leeyahay aabihii baa la dilay hooyadii baa la dilay xaaskiisa dhagta dhiigga loo daray caruurtiisii qaar kamid a la laayay xatana ninkii odaygii ku xigay baa la dilay sida aynu ognahay iiraanna waa xaqiijisay cali laarajani ma laga yaabaa dhabbihii fadwada aabihii inuu ka leexdo mise wuxuu leeyahay bal wajadna aaba'anadii weeyo bartiisaas ayuu sii joogaya fadwada aabihii sii wadi doonaa aniga maxamuud ahaan uu ka leexanaya fadwadiisaan aaminsanahay waa fikradeyda ilaah baa cilmulqeybka ogaa fikradeyda sababtoo iiraan already way ka leexatay wax badan oo ay waagii hore xeerin jirtay sida inaanay dalalka khaliijka weerarin iiraan oo saldhigyada danaha maraykanka ee bariga dhexe maysan weerari jirin way ka leexatay already taas marka waxay ku tusinaysaa in wiilkaana mujtama inuu caqli badan yahay waxay hadda dacaayadaha lagu furo waxaa ka mid ahaa ma caqli badneen oo reerka wiilka doqonka ku jiro ahaa bay leeyihiin laakiin aniga waxaan ku garanayaa meesha aan wax ku cabiro maxamuud ahaan waxaa waaye nin uu madaxweyne dhalay aabiis 40 sano ah oo aan la garanaynin reer galbeedka waxay ku leeyihin hadda war ninkan muxuu ahaa haddaa la baaraya haddaa stadium meeluu ka hadlay videogiis wixii dhan la raadinaya waa la la'yahay kaas waxaa u samayn kara qof caqli badan adoo madaxweyne ku dhalay aabbahaa konton sano duwaal meel ka talinayay haddii lagu garan waayo aad iyo aad bay u adag tahay in qofkaas inuu maaragtaa waxaa dadka qaar waxay hoostu ka shaqayn jiray qaar waxay leeyihin wuxuu ahaa maaragtaa ninaan maamul isoo mar xataa muqt ban yaqaanay leeyihin sidaa waxay ku tahay in reer galbeedkii ku wareersan yihiin ninkan oo ay ku mashquulaan hadda daraashaadda weyn oo la sameeyey wiilkan muxuu yahay waay horta asaga muxuu yahay ma ka leexan doonaa aabiis waddadiisii dimuqraadiyad ima rabi doonaa wiil yar miya bay leeyihiin waxyaabaha ogaadeen waxaa ka mid ah hadda xagga oo aan macno lahayn laakiin ku rafanayaan xagga dhalmada buu u aaday isbitaal France ama Yurub mar intaas kaliya soo heleen marka waxaad nin haddaad aragto madaxweyne dhalay oo 50 sano dal ka talinaya oo aan la garanaynin ninka caqli u qarankaas waayahay maraakiibta waaweyn ee shidaalka ina dulqaada laba su-aal keliya oo ka hartay maraakiibta waaweyn ee shidaalka waxaad sheegtay inay dayacan yihiin waxaa la la'yahay markab ku dhiirada ama hay-adaha shirkadaha caymiska geliya gaadiidka badda oo ku dhiirada inay halkaas maraan bakistan iyo indiya keliya loo ogolaaday oo ay markaas xiriir uu ka dhexeeyo dowladda dalka iiraan jarmalka faransiiska talyaaniga kulligood iiraan ayay hadda ku daba tukanayaan oo leeyihiin annagana noo ogolo shidaalkeena inuu halkaa noo soo maro dhabar jab intee leeg ayay ku tahay Donald Trump quwaddii militariga dunida ugu weyneyd iyo saaxiibkeed inay furi la'yihiin hormuz waxa waaye waxaa loo bixiyey dabin qofkii soo dhaco uu maaragtaa dagaalka dhana dabina laakiin hormuza ugu sii daran sababtoo ah waa dhul juqraafi ah ilaahay uu siiyey iiraan saasay ugu wareegsan yihiin hub waaweyn u baahna horta waxay u baahan yihiin keliya inay cabsiyaan maraakiibta waaweyn oo tartiibta u socda oo shidaalka qaada ma aha dad dagaal uma diyaarsano iyo inay isdifaacaan marka markaa kuley waa dayacayin waxaa waaye wax yar oo lagu soo tuuro laakiin intaan wax lagu soo tuurin cabsiinta keliya oo cad soo mar qofaan aniga ogolan hadduu meeshaa soo maro hadalkaa keliyaaba xiraayaba sababtoo ah inshuurasyada iyo caymiska aad sheegtay haddaay ma yeelayaan dadkana ma jeclaa riski haddii la yidhaha waddadan isbaaraa taalla khatar ah haddee maarta laguma degdegayo intii laga leexan karaa la maraya weliba markab weyn oo shidaal ma isbiimayn karo marka way adag tahay in meeshaas iiraan lagula tartamo maalin dhaweyto Trump wuxuu damcay inuu jasiirad yar oo kharaj la dhaho in uu dhaho taasaan qabsanayaa kadib ciidamaan ku daadinayaa kadib anaaba hormuuz iyo badda dhan ilaalinaya baan qabsanayaa tii ayadana way shaqayn laadahay jasiiradan yarta ah iiraan ma aha asagu ma horeeyo aniga waa ogtay taariikhdan jeclahay waa soo baaray Saddam wuxuu diyaaradaha ku sarreeyey
1982 kun sagaal boqol sideed iyo labadii uu cadaaduqaha ka dhigay jasiiradda ilaa iyo 86kii ma shaqaynin Saddam ay u xirnayd mana Iran mana tuwin waana ka badbaaday hadda kadib ay dhisatay marka Iran jilbaha looguma keeni karo jasiirad yar oo kharash xataa qabsaday ama burburiyay marka waa adag tahay dagaalkan fiiri sahal ayadoon laga fikirin generaalo lala tashanin oo aan si aad looga baaraadegin Netanyahu kaliya wuxuu arkay niman qol ku shirsan u shiiri alle halkaas ku jiraan Trumpna uu ka dhaadhiciyaan hadda ku baabi'ino gurigaas intaas kaliya ku salaysan dagaalkan habeenka dadweynaha kici doona inta kale waxay dadweynaha kici doona regime change saas ku dhici doona the regime change Mareykanka ka soo hormaray say u badan tahay labada regime change hadda kan baa dagaalka Hormuz waxay keenaysaa in Mareykanka regime change ka dhaco qorina ma waa doorasho ku dhacaya labada aqal khatar ku jira Trump maciishadii iyo wax wal marka la fiiriyo Trump markuu dagaalkii uu socon waayay NATO ogaga baxday cid soo dhaqaaqo waayay cabaadkii iyo qayladii ay ka dhamaatay saacadii soo dhaafay wuxuu dib u bilaabay arrin laga raystay dhowrkii wiiga la soo dhaafay aflagaadadii Soomaalida muxuu dilay horta aflagaadada Trump annaga waa ku baraarnaa waqtigii aan dhibsan jirnay ma Soomaalida Mareykanka iyo Soomaaliya labadaba aad buu u caaya waxna ulama haro wixii uu dhihi karay oo dhan waa u dhahay hadda dadkii baa ku nacay Yurub markii uu ka dhaxlay uu Soomaalida ku caayay maaragta waxay noqotay Mareykankana waxay noqotay dadkii inay ku daalaan maanta dhan Soomaali caydeeda odaga waxa mararka qaar waxa la waa hadalkii waa asagii iyo wuxuu sheegi jiray hadda qof ka walwalsan cayda Trump iyo wuxuu ka soo baxay dhinac kale hadaan ka Cabdixaafid intuu nacaynayay waliba Soomaalida Minnesota daanahay wuxuu nasiyay power wuxuu yiri 600 oo kun oo Soomaali Mareykan isaga odaga run iyo been iyo waxba uma kala cadda 600 oo kun oo Soomaali Mareykan degan tahay gaar ahaan Minnesota haday degan tahay 600 oo kun oo Soomaali ah arintaas seekul ahaan lahayd 600 oo kun oo Soomaali ah degan wuxuu yiri 600 oo kun oo Soomaali baa codeysa hal qolayna uu codeeyaa marka dadkii marka la fiiriyo khubradii waxa la yiri باور بوسي سومال هذا وحنقوا وحمدي كرنا جاكت انت سيبنا كليتي صار حرنا لح بقولكم بانهاي ترى مدحيني بان شيغي قفكا من صوته وعدينو باك سو بخي كره ما قرت marka waxaan uu sheegaa hal farta waa ka run kan u dambeeyay caado fiiri Soomaalida way isdilaan ani kelmadda horta xagaa maarta oo maamul malaha dawlad malahan way isdilaan kelmadda horta waxba ka jira annagu ana fadhi ka kacnaa oo Soomaalida inay tashtaa dawladooda saa dawlad weyn oo nidaamsan la sameeyaa isdilkana aan joojinaa qabiil baan la isu dilaa waa dhaxdeena maarta wax walba la isu dilaa marka kelmaddaas ah أنا وابك هلا بين رنت النلوش يا مرة قاعد إسديلك جوجية يا مرة أنت عشان قدرنا شركة اسمها قريها عصرية إمارة لكشري هومس قصر آدو ديريو اسمه وضع مرايدة شركة نورد سيسو نقصكو ديارين وإمارة لكشري هومس إمارة لكشري هومس waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda